Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay asxaabta ku xiran youtube channelkani kusoo dhawaada maanta waxaan doonayaa muuqaalkani kooban inaan kaga hadlo null object runtii markaad maqasho null ka Soomaali ahaan waxaan u naqaanaa nalkii iska yara caadiga inuu yahay xaqiiqatan nalkan ayaan filayaa inaad u maleyso inuu yahay nalka laga hadlayo marka ma ahan nalka laga yara hadlayo nalkani waa nal ka duwan sidaan aan u fahmayna null micnihiisa waa zero runtii waxaad leedahay wax zero ah sidee ayay wax ugu bedeli karaan tusaale ahaan mushaarka aad qaadato ayaa wuxuu dhan yahay $100 oo kale tusaale $100 waa mushaarka aad qaadato boqolkana sidaan wada ognahay wuxuu ka yara kooban yahay laba eber ayuu ka kooban yahay haddii dhanka midig loogu daro eber micnaheedu waxay ka dhigan tahay in mushaarkaaga uu sare oo u qaadmay sidaadan markaas aad dareemayso eberka faa'iido weyn ayuu leeyahay marka eberka mararka qaarkood faa'iido ayuu leeyahay yaana la yasin intaas waa iska yara kaftan waxaan doonayaa markaan null objectiga muxuu qaban karaa muxuusana faa'iido leeyahay sidaan wada ognahay markaan Adobe After Effects aan joogno layer walba wuxuu leeyahay sida position scale opacity iyo rotation iyo wixii markaasi la midka ah waxaa dhici karta marar qaarkood inaad project weyn aad ka yara shaqaynayso projectigaasna aad kaga baahan tahay in waxyaabo fara badan keyframe fara badan isku wada eg inaad samayso layer walbana aad furto waqti badan sidaas ay kaaga baxdo laakiin maanta waxaan kula wadaagi doonaa in kaliya aad samaynayso hal null object kaas oo kaa saacidi kara in dhammaan keyframeda layerada dhan aad ka kontrolsho tusaale 5 layer ayaa inta igaaga yara samaysan 5tii layer waxaan rabaa inaan hal keyframe isku wada mid ah aan geliyo isla markaasna waxaa danta marka koowaad igu kalifaysa waxay tahay in aan mid walba aan furo aan keyframe kiisa aan yara saxo laakiin waqtigaas badan kaaga lumi doono haddaad videogani si wanaagsan aad u daabato marka kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta markaan Adobe After Effects aan sidaan usoo furano kaliya marka waxaan rabaa in shaygan yar aan idinkugu tusiyo waxa uu qabanayo null object marka ugu horeyso waxaan samaysanaynaa null object intaanan samaysanin ka hor sidaad ugu jeedo meeshaan kani waa shape shantan xaba inta saaranna waa shape haddii aan soo dhaweyno oo fit aan shaashad aan kusoo siiyo waa sida tan haddeertan idinkaaga muuqata midka koowaad midka labaad midka saddexaad ilaa iyo lixaadba marka waxaan rabaa in shantan shay inta saaran way ka badanaan karaan tusaale 10 12 13 hadba intaad doonto ayaad ku xiri kartaa null objectiga marka null objectiga waa invisible layer waa layer kaas oo aan waxba ka soo muuqanaynin shape hadda markaan sameyno waa ima waxa inuu ka soo muuqdaa stroke ama waa inuu ku soo muuqdaa filka laakiin null objectiga ayaan rabnaa ugu hore marka adigoo meeshan joogto layer propertieska adigoo joogto ayaa waxaa leedahay right click kadibna waxaad kasii dooranaysaa new kadibna waxaa leedahay null object null object markaan sidaan u sameeyno hadda waxaa noogu yara saarmay layeradani hadba meeshuu doono ha ka sameysmo haddaad rabto qaybta sare inaad u jiido sidaas ayaa wanaagsan laakiin shaqadii wax kama yara bedelayo mar alaala markaan sameynay null objectiga sidaan meeshan aad ugu jeedo screenka waxaa sameysmay box sidaa u jeedo kuwaan dhammaantooda aan qariyo visible layerkooda aan qariyo sida u jeeda null objectiga waa midkani marka wuxuu ka samaysmida u jeedid wax uu ka kooban yahay ma jirto waa invisible layer inta badan looma adeegsan karo wax effect ah laakiin waxyaabaha motionska ah haddii aad tahay qof graphic motionska ah inta badan kan adeegsigiisa aad iyo aad ayuu kaaga caawinayaa waayo waxaa jiro haddii sawir ay tahay oo hal transition aad u isticmaalayso kanna wuu kaa caawinaya aad iyo aad ayuu kaaga caawinayaa haddeertaan marka waxaa meesha noogu samaysan null objectiga null object waa midkani marka ugu horreyn marka waxaad samaynaysaa kani waxaa la dhahaa parenty pick ama parenty linki waa iska dhigi kartaa laakiin waxaa lagu magacaaba parenty pick wuxuu sameynayaa leeyaradani ayaa dhammaan waxaad ku yara xiraysaa null object adigoo kan soo jiidayo kadibna null objectiga ayaad kusii yara duldeynaysaa midka koowaad midkaas sidaas aad samayso haddana midka labaad sidaas tusaale haddii aadan u baahnayn in layerkani lixaad laga maamulo null object kaliya marka boxkani ayaad furaysaa select layerska kadib marka waxaad iska leedahay none laakiin anaga hadda waxaan rabnaa shantani layer in hal dhaqaaq ama hal meel in maamulka laga yara siiyo kadib marka null objectiga ayaan dooranaynaa ugu horey marka waxaan rabnaa in rotation iyo waxaan ay ku sameeyaan oo circlekani dhexda uu ku wareegsamo marka waxaas leedahay inta badan maxaa anaga nolol tusiyaa example maxaa nagala siiyaa shapeska runtii qofka asaga ayaa markaan baahidiisa og waxyaabaha uu ku samaysanayo
haddii hal example lagu tusiyo macnaha waxay ka dhigan tahay in wax lagu ifiyey adiga ayay kuugu xiran tahay markaasi waxyaabaha aad kaga baahan tahay. Marka haddeertan waxaan kaga baahanahay in dhammaantooda uu ku soo wareegsado. Marka anigoo taabanayo null object anigoo ii dooran ayaa waxaan taabanaya keyboardkayga R, ama sidoo kale waxaan furayaa null objectiga kadibna rotationkan ayaan ka dooranaya. Marka hadba midkaad doonto, waayo haddii aadan dhammaantooda kuwa aadan fahamsanayn cashir hore ayaan ka sameeyey, waad daawan kartaa cashirka keyframeska dib dambe haddaad janalka kaga laabato ama qaybta sare ayuu idinkaaga soo muuqan doonaa. Marka anagoo null objectiga meeshaan dooranay ayaa waxaan leenahay R, kadibna rotation ayaan sameynaynaa. Haddeertaan dhibka jiro marka waxaa waaye rotationka intaanan gelinin qaladka yar aan sameyna waxay tahay circlekani dhexda ku jira xitaa waxaan ka maamulaynaa null objectiga. Marka waxaan leenahay layer 1kani oo midkaan ah midka weyn ma doonayo in null objectiga laga maamulo. Marka waxaan leenahay asiga ayaan furaynaa, kadib waxaan leenahay none, laakiin dhammaantooda kuwan kale in laga maamulo ayaan doonaynaa. Marka ugu horeyso markaan sidaa aan dhahno, sidaa u jeedid dhammaantooda marka waxay soo galayaan qaybtani ayay soo yar galayaan. Marka sidee ayaad ugu ilaalin kartaa? Waxaan leenahay control Z sidiis hore markaan ku celino. Marka null objectiga wuxuu ku samaysan yahay qaybta dhexe ayuu yaalaa. Hadba kan haddaad dhinacaas geeso rotationka dhinacaasi ayay ka yara samaynayaan. Marka kan ayaan centerka keensanayna. Marka sidee ayaan u keensan karnaa? Kaliya marka hore null objectiga dooro, kadibna adigoo by behind-kaasi taagan, kadibna controlka qabanaya ayaad 2 jeer waxaad siinaysaa click. Isla markiiba sheygu wuxuu samaynayaa qaybta centerka ayuu ku imaanayaa. Haddeertaan marka rotation ayaan gelinaynaa. Marka hore keyframeska ayaan daaraynaa, xoogaa yar ayaan yara baxaynaa, kadibna rotationka ayaan sidan u wadaynaa. Sidaa u jeeda haddeertaan mid soo yara galayo ma jirto circleka ilaa inta markaan keeno. Haddeertaan marka bal fiiri marka siduu uu samaynayo rotationka uu samaynayo waa speed. Xoogaar keyframes kale waqtigiisa sii baday oo slow motion ka yara dhig. Mar walba haddaad kan u soo yara dhaweyso speedkiisuu badanaa, mar walbana aad sidaan aad ugu sii fogeysana slow motion oo kale ayuu noqonayaa. Haddeertaan sidaan ayuu noqonayaa. Play aan dhahno. Marka waxaan filayaa marka null objectiga inaad faham guud aad ka qaadatay iyo waxyaabaha loo adeegsan karo in sheeyo badan laga maamulo asaga, oo kadibna suurtagalna ma ahan midna ogsoonow. Suurtagalna ma ahan adigoo midkaan aad adeegsanin parenty big adigoo aadan adeegsanin ma adeegsan kartid, ama parenty linked sidaad u taqaanaba. Marka waxaan rajayn doonaa inaad fikir guud aad ka qaadateen. haddii ay tahay marka kugu horeysa haddii youtube channelkan aad soo booqato fadlan subscribe saar furo calaamada gambaleelka si ay kugu soo yara dhaca muuqaal walba markaasi soo geliyo lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yar faa'iidaystaan. Inta badan channelkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia. ugu dambeyntan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa inoo muuqaal kale.